السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل ونكسن داوديال ميل كستو أجوكتان كسودو هذا جنرال يوتيوب كافتح برودكشن برنامج جرو كوبن أيام ربع إن نصير لايف وقبته مدة دير أي يودن بيصير لايف سيتوسا فيسبوك مركز درتيد سودو هذا محا عصب أو سكر بي waxaan rabaa inaan dul istaago wasaaradii batroolka ayaa raaligelin ka bixisay maabkii shalay wixii dhacay ayay yiraahdeen raaligelin aan ka bixinaynaa ayadoo markaa lagu salaynayo in la leeyahay qalad naga dhacay waxaan rabaa in ummadda Soomaaliyeed muuqaalka shaagareeya ummadda Soomaaliyeed inaan laba arrimood kaliya aan dul istaago waa live yar oo kooban wasaaradda batroolka waxay tiri qalad yar naga dhacay ma badna waa yar yahay qalad aad u weyn ma aha sidaa darteed waxay yiraahdeen raaligelin aan ka bixinaynaa qalad ka dhacay oo ay wasaaradda batroolka raaligelin ka bixinayso waa qaladkee وسؤال كواد محو صلك كوهيا ما يهي مد ومد صوماليات أي آمني كرتو وقت عام قلت كاسان دونا يا مركي إن البرامج كوسو كوبو ضدكنا أي واحد منكو قاعدين وزارة دي بترول كأي كهذا الشيء شلي وحيد داعي شلي محاد داعي ما بو حالا صوبا بيجي قلت كجلي جل مدوك هرشبل بوتلان إسسي قاتمو أو أدمو دبا إن ومد الصوماليات إن لجوك لجيو لدونيو maabkaas wuxuu muujinayay arrimo badan oo ay ka dhigayeen mas'uuliyiinta maamulada oo ugu horeeyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waxa la yiri mudug waa dhul lagu muransan yahay waxa la sheegay SSC qaatuma la inkiray waxa la yiri Sool iyo Sanaag iyo Caayna waxa la yiri waa dhul lagu muransan yahay maabkii shalay markay kacdoon sameeyeen shacabka oo la kashifmay oo reer Hirshabeelle ay qayliyeen reer Galmudug ay qayliyeen reer Puntland ay qayliyeen oo la ogaaday ceebta in dhaxda looga jiro ayaa raaligelin maanta la soo bandhigay sheergareey muuqaalka sheergareey live mar hore ay ugu dambeysay marka sheergareey muuqaalka waxaan isdul taagi doonaa marka raaligelinta muhiim inoo ah wax badan inay dadka Soomaaliyeed ka ogaadaan waxay yiraahdeen wasaaradda batroolka waxaan raaligelin ka bixinaynaa hadduu alla ku idmaayo maabkii shalay oo ah qalad yar oo naga dhacay qalad yar waxay ku tilmaameen qalad yar maabkii dalka dawlad aan maabkii dalka xifdin karin walaalayaal oo xifdin kartaa ummad Soomaaliyeed qarannimo Soomaaliyeed iyo amaanadii dalka loogu dhiibay runtaan isku sheegno qabiil iska duuduub meel dhig xaqiiqdan isku sheegaynaa dawlad xifdin weyday maabkii dalka oo aanan maanta gacan ku hayn oo la taagan annagu qalad yar naga dhacay maabkii dalka ayaan xifdin weynay hay'ada naga hoos bixisay ma lagu aamini karaa qarannimada dalka waa sax laguma aamini karo waxba qabiil ha ku difaacin runta shay ma lagu aamini karo marka ummad aan xifdi karin maabkii dalka ayaa maanta waxay rabaan ummad Soomaaliyeed aan barwaaqo gaarsiinaynaa batroolan qodaynaa shidaalkaasi lacag fara badan baa ka imaanaysa dalku waa horumaraya waa dad aan xifdi karin maabkii dalka maxay yiraahdeen arag waxay yiraahdeen shirkad ayaa soo diyaarisay maabkii shalay sida darteed raaligelin aan ka bixinaynaa qaladkii dhacay aan u raacno marka sida iyagu yiraahdeen anigoo og inay been sheegayaan aan u raacno hadday shirkadi soo diyaarisay maabkaas wasaaraddu miyayna lahayn dad qaabilsan la socoshada arrimahan oo kale war miyaynan wasaaraddu lahayn hadduu alla ku idmaayo miyaysan wasaaraddu lahayn wax la yiraahdo wax la yiraahdo check-in oo xafiis walba yaala maxaa kalifay wasaaraddu ma controlin wixii oo dhan aan hawada gelinay markii laga qayla dhaamiye kadib aan raaligelin ka bixinaynaa horta meesha ogaada qofka maanta rajo ka sugaya dawladnimada maanta jirta ha isku daro laba arrimood mid uu ka qaato dawlad aan maab xifdi karin maab hadda waxa weeye qariiradii dalka maanta qariiradii dalka ayaa la xifdin waayay batrool inta la qodo miyaa dhaqaalaha ka yimaada la xifdin karaa runtaan isku sheegay waxba soo kordhin mayso madaxweynahan isku qabiil lahay wasaaradda arrimaha dibadda ninka wataan isku qabiil lahay waxba soo kordhin mayso madaxweyne dawladdiisu wasaaradda barat qaabilsanayd batroolka maabkii dalkan xifdi weynay waxay yiraahdeen maabkan waxa la sameeyay 2015 maabka 2015 la sameeyay sida darteed maabkaasi hay'ad diyaarisay ayaa naga hoos bixisay sida darteed naga raali ahaada afisaan idin weydiisanayna wixii dhacay annaga shaqo kuma lihin bal fiiri meesha laga dhigayo hadalka waxa laga dhaadhicinayaa maabkii dalka ayaanan xifdi karin
marka qofkii qariirad warqad ku qoran xifdi waaye qarannimada Soomaaliya ma xifdi karaa batrool ma ka sugi karnaa waxba yaanan la dhibsanin runta ilaahay in laga baqaa muhiima war waxaan xifdi weynay maabkii dalka aniga ma dhihin wasaaradda batroolka ayaa shaacisay in aynan gacan ku hayn wax la yiraahdo maabkii dalka marka maabkii aan luminay waxa hadda la iga dhaadhicinayaa maabkan waxa la sameeyay 2015 waqtigaasi Hirshabeelle ma jirin waqtigaasi SSC qaatoma ma jirin waqtigaasi galmudug iyo Puntland waxba kama jiraan waxay ugu tala galeen waay marka ana runtii idin sheegay wax la xifdi waayeen ma aha waa wax ay ugu tala galeen oo wallahi ah ma iga dhaadhacayso madaxweynaha joogay xafladda fiiri haddaanan waxaan loogu tala gelin oo wax la qorsheeyay aynan ahayn madaxweynaha joogay ra'iisul wasaaraha joogay wasaaradaha kala duwan baa joogay madax maamul goboleedaa joogtay sidee buu qalad ku iman karaa xasma ummadda Soomaaliyeed lala hor imaanaya ujeedo waay marka waa ku dayid waa lagu dayay shacabka Soomaaliyeed markii la arkay reer Puntland inay ka dhidhiyeen markii la arkay reer SSC qaatuma inay ka dhidhiyeen markii la arkay reer galmudug inay ka dhidhiyeen fiiri qaladaad kala galay waxa kamid ah waxa la yiri galmudug waa galgudud kali mudug ma jirtaa leeyahay waa dhul lagu murasay galmudug maxaa laga dhigay hal gobol haye Hirshabeelle waxa la yiraahdo ma jiraan shabeellada dhexe iyo hiiraan maamulkii Hirshabeelle waa laga talaabsaday maxaa lagu yiri sool iyo sanaag iyo cayna waa lagu murasay qolooyinkii muuse juudaan maamulkii SNMta waxa lagu tilmaamay inuu yahay maamul u madax bannaan hadda waa maamulkii SNM ee tabarta darnaa ayaa lagu yiri bal arag hadda waxay ku leeyihiin 2015 2012 xilligaas maabka la sameeyay maabka 2024 soo bandhigayo waa 2025 waxay aniga iga dhaadhicinayaan hay'ad caalami ah ayaa qortayo ilowday ina 2015 ku jirno fiir marka ujeedo loogu tala galay waay annagu waxaynu joognaa qarniga 2024 been la ima sheegi karo maab la diyaariyay 2012 ama 2015 ayaa la qaldayo lagu qalday 2024 haye waaba kaba soo qababa maabkii waa la qalday miyaan la arkaynin magacii Hirshabeelle oo meesha ka maqan maxaa loo arki waayay war miyaynan dadku qariiradu arki karin madaxda meesha joogtay inay ku qoran tahay dhul lagu murasay yahay runtan idin sheegaya marka ujeedada iyo kajeedadan idin sheegaya ujeedadu maabkan waa mid loogu tala galay ma aha mid lagu qaldamay haba qabiil ha ku difaacin kooxdan damujadiid ma astaahilaan in qabiil lagu difaaco anaa ku sheegay qoladan ma astaahilaan waxba yuusan qabiilka iyo wixii ku qaadin batrool bal fiiri iswaafajiya waxyar iswaafajiya batrool fiiriya ayaan soo saaraynaa haye indhahayno meel fogay wax ka arkaan haye barwaaqan aragnaa haye maabka horteena yaalana ma aragno laba jeeran kugu celinaya batrool baan u jeednaa barwaaqan aragnaa maabka horteena yaalana ma aragno saddex jeer barwaaqan aragnaa batroolan aragnaa horumaran aragnaa laakiin maabka horteena yaala uma jeedo iswaafaji marka dawladda batroolka aragta ee arki weysay maab hortooda ku dhegan muxuu noqonayaa ii sheega ma iskeenayso annaga dad waaweynaan nahay gaar ahaan aniga dadka dee lacagta lagu bedelo ama qabiilka lagu bedelo maahi aniga mowqif iyo go'aanaan leeyahay iswaafajiya marka ujeedadu marka maxay ahayd duulaanada maamulada iyo in dadka Soomaaliyeed wax aan jirin laga dhaadhiciyo madaxweynaha oo kiyaaluhu shiraalka ku arkay muxuu ugu arki waayay hadduusan asagu wax ka ogeyn qariirada hortiisa taala madaxweyne indhahaagu qariirada ma arkaan qariirada bal fiiri dad waaweynaa maanta waxay iga dhaadhicinayaan madaxweynihii wuxuu arki waayay qariirada hortiisa taala hadda dad indhoolayaala madaxweyne ka ah Soomaaliya ama mas'uuliyiin ka ah madaxweynuhu waa indhoole ra'iisul wasaaruhu waa indhoole wasiirka batroolkana waa indhoole bal arag qariirad aan annagu aragnay ayay arki waayeen iyagoo xafladda jooga waana lagu ciyaarayaa waxaa la rabaa dad waaweynaan nahay in beenna loo sheego markaasaa wasiirkii dhammaa
intuu soo fariisto wuxuu leeyahay qaladaa dhacay qaladaa dhacay qalad yar haye war qariiradii Soomaaliya lumiyeen qaladka yar muxuu yahay qariiradii Soomaaliya lumiyeen waxba kama jiraan marka waa riwaayad loogu talagalay in dadka Soomaaliyeed lagu jahawareeriyo runtan idin sheegaya qof marka qariiradii dalka xifdi waayay batroolka ma xifdin karaa isweydii ma xifdin karaa batrool ma ku aamini karnaa qofkii qariiradii dalka lumiyay iisha ma ku aamini karnaa bal fiiri marka hirshabeelle waa lagu qaldamay laa ilaaha waa lagu qaldamay haye mudug waa lagu qaldamay SSC qaatuma waa lagu qaldamay fiiri waa meeqa qalad bal fiiri si hoose waxa lagu yiri Somaliland hadda waa SNMT tabarta yaray SNMT jabtay tabarta yaray waa dal xoro madax banaan oo waxay doonaan samay kara sorry waa la qaldamay saasa la yeelay Soomaaliya jaahiliin ma aha runtan idin sheegaya marka batrool ma ku aamini karnaa adaa lagu weydiinaya number 1 batrool ma lagu aamini karaa dad xifdi waayay maya qaran Soomaaliyeed ma lagu aamini karaa maya marka arag meeshay wax marayaan arag marka ujeedadan idin fahamsiinaya horta maamulka Puntland runtan idin sheegaya maamulka Puntland waa maamul duulaan dhan walba looga yahay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Danina waa nin aad u maskax badan duulaanadii lagu qaaday iyo sida ay u fashilantaa ku tusayaan ujeedada laga lahaa Puntland wax kala ma ahayn in la isku dhufto galmudug iyo Puntland waxa la rabay dagaal qabiileed u dhaxeeya Majeerteen iyo Sacad marka lagu leeyahay mudug waa dhul lagu muransan yahay waxa la rabay in la isku dhufto Sacad iyo Majeerteen bal fiiri duulaanada maamulkaas lagu qaaday mid min bilow ilaa dhamaad aan halkan ku soo koobi kara ma marka almuhiim batrool qofka ka sugaya oo kule barwaaqan gaarayna laba su'aaloodan hordhigaya qolooyinka qariirada lumiyay haddaan batrool ku aamini karno laba su'aaloodan hordhigaya si fiican i dhigeyso ma xasuusataan markab dalxiis ahaa oo Turkigu lahaa oo wadamo fara badan marayay in markuu Muqdisho yimid la yiri markabkan badeenu ilaalinaya ma xasuusataan markab dalxiis ahaa ee adduunyada dhan ku soo dalxiisayay markuu yimid Muqdisho madaxweynaha dalka muxuu yiri ilaahay amarkii alxamdulillah Turkiga waxay noo soo dirtay markabna ilaaliya markabkii aaway markabkii aaway lama hayo Soomaa arag marka maalin walba waxa laga dhaadhicinaya markabkii difaaca lama arag maanta maxaa laga dhaadhiciyay markab shidaal baaray haye barwaaqan aragna maxaad u jeedaan batrool waxa la inkiraya doorkii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wala inkira madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud batroolkan keenay wallahi dokumentiga waxaan hayaa oo aan soo bandhigi doonaa madaxweyne Farmaajo dokumentiyadii batroolka uu soo bilaabay ayaan halkan ku soo bandhigi doonaa madaxweyne Farmaajo kaalintu ku lahaa ayaan soo bandhigi doonaa intay soo socoto dokumentiyan keeni doonaa dadka Soomaaliyeed ayaa arki doona qabiiladu wax ku fahantaa Soomaaliya balwaan qabiil intuu duubay ayuu tuuray laba qofood oo Soomaalinimo igu daawata ayaa igaga sharaf badan durbaan qabiil inaan garaaco horta iska ilooba qabiil iyo inaan aniga damujadiid qabiil ku difaaco waa habeenka xalaya oo tagay waa jiri jirtay sax waa jiri jirtay xilli aan durbaan qabiil watay ilaahay waa uga toobad keenay ummadeedana waan hor imid haba ka cabsan oo wallaahi ah oo billaahi ah oo tallaahi ah inaan damujadiid ku difaaco qabiil ha iga sugin igu nacama igu jeclow haddaad adiga igu nacdo Soomaali igu jecel baa jooga madaxweyne Farmaajo dokumentigiisaan hayaa oo ilaahay ugu ogyahay waxaan hayaa dokumentigii uu batroolka asagu uu gacantiisa ku seexanaya ummadda Soomaaliyeed dokumentigaas waa hor keenaya waa ballan iyo xadifiiri ummadda inay xaqiiqda ogaato waqti dheer ayaan ku bixiyay wax badanna waa tusi doonaa insha Allah dadkana dokumentigan way arki doonaan dokumentigaas madaxweyne Farmaajo saxiixay oo wallahi ah min bilow ilaa dhamaadna hortiina keenaya maxaa lagu leeyahay Xasan Sheekh Maxamuud batrool noo keen dawlad xifdin weysay ma miyaad adigu batrool ka sugaysaa
دولة ميت عشوريسا مات بترول كسوبي كجواب دولة ميت عشوريسا ما بترول كسوبيسا مدحوينة قبوره فاقية ميات بترول كسوبيسا نكا لوكا دنتا جود بلي قيسانية ميات بترول كسوبيسا اسويدي عرق فيري اوهن محا ودنبي oohintaasi waxa u dambeeyay dadkii Soomaaliyeed ee degan xaafadda Kalluunka 3 su'aalood ka jawaab madaxweynihii qabuuraha faagay miyaad batroolka sugay madaxweynihii meydka cashuure miyaad batroolka sugaysaa madaxweynihii dhulka danta guud dhacay miyaad batroolka sugay wala barwaaqoobaya ummadda horumaray gaare waxba ummadda Soomaaliyeed baa been loo sheegay maanta muhiimadda ay leedahay maanta wixii dhala tusay dadka Soomaaliyeed oo sheegay أما قبيل كل إيراني أما دم جديد أما برنامج كإستاج دم جديد وافشل أنت أنا كل شيء دولة المدينة مال الله لأن ما أنت محن مرينا لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم ما أنت محن مرينا ما بكي دل كان نقل أمي ما بكي صوماليا أيام نقل أمي والدولة دي صومالية ما بكي دل كان نقل أمي نقل هذا قريرة دي صومالي وين نقل أمتي نقل هذا بل أرق ماشان مرين أرق إلا فشلمي أنت ساكو غفلا دور مالمود كهر مدحونا حسن الشيخ محمود مقالة نيروبي وتري وحو كدعوودي أحمد محمد السلام موادن صوماليات مدحوينه أو موادن كيس أجنبي وقد دعووني حسن الشيخ كهر ولي معي وليام روتو وحان كهربا إن أحمد مذوبي إيسو قبطو إيه كان أحمد مذوبي ومدحوينه موادن كيس وقد دعووني يا أجنبي ويليام إيسوق مدحوينه كيني إيه كان أحمد مذوبي نك أجنبي أهو كأغلب ذيه مركا ترى هذا مدحوينه جبل أنا إيقف كذا إيه كان وحو أغانيا إنو هيلي كرو دول أديك كاقات كان يوا عدوين محاك عنتو قهرست كان يبض نقو هيستي حداد ترى هذا جبل أنا إيقف مقان محيكو سميني أقل حمض أرق عدويني عبتينو تس وانا عيبي بل نيكا بد كوغو هيستي dhulkaaga hore u haystay dhul kalena rabay inuu ka qaato hadaa tiraada Axmed Madooba in mucaaradsan ee isoo qabo muxuu dareemayaa inuu Jubbaland kala wareegi karo aqligu markuu inta marayo aaday laciif u tahay hayli sugin marka aniga hal dambiyan galay qoladan talada dalka haysa ayaan taageeray halkaas maraan dambi galay maalintaasna qofka bilcad qofka islaamku waa qaldamaadee laakiin inaan anigu u durbaantumo habeenka xaleeyay dadka qaar waxay waxan taan hadda live aan ahay mugta ma duubna barnaamijkan marka waa idila wadaagaya waxa leeyahay waxan taa Cabdullaahi Balwaan Xasan Shiiqo wax ka waayay sida darteed ayuu mucaaraday waayay maxaan ka waayay lacag ama xil Soomaa may aragteen anoo Muqdisho tagay may aragteen qofka Xasan Shiiq baahi u qaba xamar u tagaa qofka Xasan Shiiq lacag ka rabo Muqdisho tagaa may aragteen anoo Muqdisho tagay waxaan hadda ku laaban doonaa Puntland waxaan mar kale tagi doonaa Garowe Boosaaso Qardho laakiin Muqdisho maya ogaada markii inaan wax baahiya u qabin haddaan xil ka rabo ama aan lacag ka rabo Muqdisho ugu tagaa lagama yaabo nin go'aan leh iimaan leh wixiisu ay cad yihiin anahay qofka aaminsan waa taas المهم waxaa xaqiiqo ah oo aan 10 jeer ku celinaya adigu inaad ka jawaabtana loo baahan yahay wax kala ma dawlad ma bixidi weysay ma xidin kartaa qaran Soomaaliyeed ma xidin kartaa qaran Soomaaliyeed waa kaas meesha soo ku ogaad maabkii dalkan xiddi weynay waa naga lumay maabkii ummadda waa naga lumay aniga ma dhihin wasiirka batroolka dawladda federaalka Soomaaliya inta soo fariisto wuxuu yiri naga raali ahaada qariiradii shalay aad aragteen qalad waxa annaga maabkeena aaw waligay ma arag xafiis dawladeed oo maab oolin xafiis dawladeed oo aan maab oolin horta meesha inaysan dawladda ka jirin ogaada mooriyaan isbahaysatay
ayaa horta meesha isku haysta wax dowlad la yiraahdo oo Soomaaliya ka jiro haba yaraatee malaha runtan ku sheegaya haddii dowladda jirto waxaan arkayna maanta ma arki lahayn arag dhulkii mudug markii la arkay ciidanka Puntland markii la arkay oo la arkay ciidamada jooga mudug oo la ogaaday awoodda Puntland ay leedahay maxaa lagu jawaabay annaga waa qaldanay mahana ulama jeedin annaga ulama jeedin hadduu alla ku idmaayo dhibaato kale ulama jeedinoo waanu qaldanay maxaad ku qaldanteen waxaad ku qaldanteen markaad aragteen technicadaas ciidankaas markaad aragteen aad qaldanteen soo maa meeshaan marayn arag marka muhiimadda ugu weyn Soomaaliya ogaada muhiimadda ugu weyn oo maanta dadka laga leeyahay in laga aqal badan yahay ayaa waxna laga dhaadhicinayaa maabkii aan soo bandhignay qalab u ahaa alloora dowladii ma jirto dowlad aan qariirada Soomaaliyaba haysan dowlad ma ku tilmaami karnaa hadiyaan u sheekaysanaynaa live aan ahay maanta ma soo duubin barnaamijkan waa live waa sheekaysanaynaaye madaxweyne xasan sheekh maxamuud xafiiskiisii waxaa laga waayay maabkii dalka intuu ku jira internetka dowladdu internet la'aan miyaa haysa maya maxay u soo saari weysa qariirada anaa daabici kara adigaa soo daabici kara xafiis dowladeeda qariirada laga waayay aniga nin waalan ma ii malayaan marka bal arag dad waalan may noo maleeyaan xafiisyadii dowladda iyo internetka miyaa qariiradii dalka laga waayay maya hay-ada hoosta naga gelisay adiga soo dowlad ma tii maxaad u kontrooli wey hadda haddii dowladdu warqadan gacanta loo geliyo miska qaadanaya dowladdu ma iska qaadanaysaa bal arag jaahilnimada ummadda lala hor imaanaya arag warqad haddaan dowladdu u geeyo qofka mas-uulka muxuu samaynayaa warqaddu eega ma jiraa mas-uul warqadaas asagoonan eegin xaflad qabanaya oo xafladdaasi ku soo bandhigaya ma jira su-aashan jawaabteedaan idinka rabaa sida ay dowladdu noo sheegtaan ka duulayaan ma jiraa dowlad inta warqad loo geeyo ayadoon fiirin xaflad dhiganaysa ma laga yaabaa xafladdaasna dadka ugu sarreeya inay ka soo qayb galaan jawaabtu waa maya halkaas markay marayso sheekadu waxa weeye waa fashil iyo cad dad aan dowladnimada aqoonin baan dowlad u dhiibanay anaa kule dad aan dowladnimada aqoon ayaan dowladnimo u dhiibanay dad aan aqoon nidaam iyo kala dambayn iyo sharci ayaan dowlad u dhiibanay ummad aan hoggaan aqoonin baan dowlad u dhiibanay anaa kule arrinta shidaalka wallaahi waa ku faraxsanahay dalkayga inuu shidaal yeesho oo bilaahi oo tallaahi sidaan u jecelahay dalkayga inuu batrool yeesho si lamidaan beenta u necbahay ayaan beenta u necebahay laakiin waxaan diidayaa hawl uu qabtay madaxweynihii hore ee Soomaaliya wallaahi waa kana oo bilaahi oo tallaahi dukumentiga waa kana madaxweyne farmaajo khayr allah ku siiyo hawl uu qabtay madaxweynihii hore inta la dhihi lahaa qor isku dhiib weeye arrintan ayaa lagu leeyahay xasan sheekh maxamuud dal xoreeye aanuu adeerkay yahay anaa runta u sheegaya dalow xoreeyey ummada wax u qabtay ma jiro anaa ku caddaynaya anaa iimaan leh anaa sharaf leh anaa ogolayn inaan durbaan u tumo kooxda damujideed anaa runta ku sheegaya intaas horta faham maanta marka muhiimadda igugu qosolka badan waa taas marka maxaa la sameeyey markii la arkay in la fashilmay waxaan soo kordhi doonaa live-ka horta raalli ahaada live-kaan soo kordhi doonaa si fiicanaan u sheekaysan doonaa wacdarooyin fara badanaa soo socda wax badanna waa kasoo sheekay doonaa insha allah aniga waddada saxda ah oo aad shalay igu ogeyd ayaan weli ku taaganahay mana laga yaabo laba arrimood haba isdhihin madaxweyne xasan iyo kooxdiisa balwaan iibi kara haba is oran aniga beec maahi aniga ummadayda Soomaaliyeed waa ii siman tahay aniga wada jidka iyo wada socodkan jecelahay aniga nidaam walba oo dhaqaaqayaan taageeraya marna lagama yaabo inaan ummadda Soomaaliyeed dhabarjibin ku noqdo sidaa darteed beenta waa shay xaaraan waana ka soo horjeeda waxa ku soo haray damu jadiid batroolan ku aaminaynaa soma batrool haye barwaaqan gaarayna haye yaa madaxweyne noo ah marxuum nin canshuuraya
ما انتهى عشور قف ما كان انتهى عشور به ما لو فري عشور ما لو جورس عشور ما الدولة ما يد عشور يسان شلال كسوقنا هذا كهرباء حسن شيخ محمود هل سنة يلح بالوضع قدما مدحوينها كحجة أي بترول كاس نص صاري دور بترول كاس مدحوينها كحجة نص صاري هذا نقدر درنا هاي هذه قاعد يقبل كلام إسوافجي مدحوينه هلا يوحي أوكيالها أن وطو وحن كو أركا بترول إيه هرومر يا قهية حسن شيخ قريرة ده هرتي ستال قريرة ده سمحو أركواي الشدال بده هرتي سكجرة هالضوبة أركي محو أركواي قريرة ده هرتي ستال وابد وحبك من جرا وحل قضية بل إني نولي هين إيو إني دنتين بوتلان إيو أساسي قاتو markay Puntland soo jawaabtay waa laga laabtay maamulka Hirshabelle waa la inkiray waxa laga dhigay Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ka saarto qofka maanta marka durbaan tumaya oo isla shidaal lagu soo saaraya isku kay qabadsi meedan cashuura shidaal waa soo saaraya aadan ku salaamaya Jidda Xuseen meedan cashuuraya waxaana soo saaraya ma soconay meedan cashuura waxaana soo saaraya batrool iswaafaji gabadha la furaan canshuuraya batrool aan soo saara haye had bal arag waxyaabo laga xishooda jira waxyaabo laga xishoodo ayaa jira arag marka meesha la marayo nasiib darrada meesha talaare maanta meeshaan taaganahay arag mar labaadan ku celinayaa qariirad qaldantay ma jirto ujeedo ayaa loo qariyay waana lagu dayay inaan noolnaha la arkay waana laga soo jawaabay kadibna dib ay uga laabtay intaas ogaada qariirad luntay ma jiro maxaa yeelay madaxweyne fiiri qariiradda intay ku jirtaa laptopkaaga qariiradda intay ku jirtaa internetka meeqay qaadanaysaa in qariiradda la daabaco wax ka yar 5 daqiiqo wasiirku wuxuu leeyahay waqtigan u weyn ceebta allah hastur wasiirku wuxuu leeyahay waqtigan u weyn bal arag madaxweynuhu waxa leeyahay wala waay qariiradda Soomaaliya ma laga waayo qof xafiiska dawladda ka shaqeeyo oo daabaca waxaan marka waa ujeedadaas maxay ahayd in lagu dayo qariiradan waa dhab waa xaqiiqo waana lagu dayay balse waa iska qabanay taasi waa guul iyo gobonimo Soomaaliya waa guul iyo gobonimo waa ku faraxsanahay waana soo dhaweynayaa inay fashilmaan kooxdan Damujadiid waa soo dhaweynayaa mar kale aan ku celinayaa qofka wuxuu isoo qoray maadaama live ahay dhanka wanaaga wax ka eeg nacashihu very good waa su'aal fiican waa ka jawaabaya maanta xor nacas waxaa la yidhaahdaa qofka ummadda durbaan qabiil la soo hor istaagay iyo laaruush qofka qaato qofkaas nacas alxamdulilah aniga laaruush ma qaato qabiilna ma taageero Soomaali dhaba oo xaqiiqda tilmaami karaan ahay maxaan ku wanaajiyaa Damujadiid oo naga dhaxeeya waxba ma waxaan iraahdaa xasan dal xureeye dalkee la xureeye ii sheeg in ka badan saraakiisha naga dhimatay xasan sheekh intuu joogay 15 sano nagama dhiman 15 sano nagama dhiman war ma waxaan iloobaa xasuuqii loo geystay ciidanka qaranka mase waxaan la yiraahdaa madaxweynuhu waa nin hawiya waa nin hiraaba annaga ayaa dalka haysana ilaahay iga koray taas waa sharaf muhiimadda marka qoladan aniga talada dalka haysa wax kale oo ku tilmaami kara maaha ayax baahan oo aan dhargeyn waayo runtan idin sheegaa soo dhawaada saaxiibada qadarinta leh waxaan ka jawaabayay oo live-kan u soo galay arrintii qariiradda inta hadda la soo qabsatay barnaamijkan waa live ma duubno su'aal walban ummadda uga jawaabaya si toos ah oo live aad ii daawanaysaa qariiraddii shalay la soo bandhigay ee lagu xadgudbay dhulka uduga ee Puntland lagu xadgudbay maamulka Hirshabelle lagu xadgudbay Galmudug la yiri wax la yiraahdo Hirshabelle ma jiro la yiri Galmudug waxay ka kooban tahay hal gobol oo ah Galgaduud mudug waxa la yiri waa lagu muransan yahay dhulkii Sool iyo Sanaag iyo Caynoon hal sano ka dagaalamay ay waxay ii keeneen waa lagu muransan yahay waa dhulkan xureeyay waaya dhulkii aan xureeyay ee anigu agtayda saaray ayay dhaheen dhul lagu muransan yahay waa ma heshiis naga dhaxeeyo heshiis naga dhaxeeyo ma jiro haddaad isleedahay Cabdullaahi Balwaan jagaa lagu booday iyo lacaga lagu boodana
nin baahan haddaan ahay xamaraan tegi lahaa nin baahan haddaan ahay ama xil uga baahanahay wallaahi xamaraan tegi lahaa miyay aragteen anoo xamar tegaya lagama yaabo intay damujdiid madaxtooyada joogto inaan xamar tago ujeedadu maaha magaaladu waa magaaladeedii laakiin wax kale maaha ujeedadu waxa weeye qoladan qowlaysatada ah afkayga kula dagaalamaya waana hubaa inaan ka adkaan doono shirkii golaha wadatashiga qaran magacii fashilmay ayaa waxa ay wararku sheegayaan in la isku yimid saddexdii madaxweyne maamul goboleed iyo haddawaa saddexdii jeebka ku jiray iyo xasan sheekha isku yimid shirkii waxaa la yidhi is-aragga koowaad uu noqonayaa hordhigay haye waa ka soo hadli doonaa tan shirkii waa la isugu hor yimid madaxweyne xasan sheekh maxamuudna wuxuu u dacwooday madaxweynaha kenya caawaan ka soo hadli doonaa kaas madaxweynihii jubbaland ayaa laga dacwooday madaxweynihii kenya looga dacwooday madaxweynihii jubbaland waxaa la yidhi naga qabo waa madaxweynihii ugu horreeyey muwaadinkiisa kenya uga dacwooda fadeexadaas caawa noo ballana caawa life kalaan soo geli doonaa caawa noo ballana taasi arrintaas waxaan ka sheekay doonaa caawa laakiin muhiimadda hadda taagan waxa weeye arrintan fashilka ah shirkii muqdisho ma la isku yimid iyo kaadaan akhriye magaalada muqdisho caasimada soomaaliya waxaa ka saacadahaasoo dib u furmay shirkii golaha wadatashiga qaran yaa joogo lafta gareen alla ku ceebeeyo yaa jooga qoorqoor yaa jooga cali guudlaaw shir golo wadatashi qaran ma jira maya ujeeddada shirkan laga leeyahay maxay tahay muddo kordhin ma ogolaanaynaa ha sheegin xasan sheekh shalay isagaa qoray qaatay xabad ku riday madaxweynihii hore maxamed cabdullaahi farmaajo maantana qoray ayaa looga hor istaagaya anaa ku dhahaya cid kale ha weydiin inuu xasan intuu madaxtooye tago uu joogo habeenka xalay oo tago waay waxba yaan ummadda beenta loo sheegin waxaan ku faraxsanahay in wax kastaba natiijo wax ku oola ay ku dhammaan doonto sharuudihii axmed madooba lay soo dirayaa caawan ka soo hadli doonaa ayay sharuudaha uu soo saaray caawan ka soo hadli doonaa sharuudooyin muhiima ayaa miiska ii saaran madaxweyne axmed madoobe iyo arrintiisa caawan ka hadli doonaa marka batroolka soomaaliyey aniga cid iga jecel male laakiin beentaan necebahay batrool xasan sheekh haddaad ka sugtaan dad waalanaad tihiin isbitaalka waalid aada waay war nin ka xishoo waaye meyd haddaad batrool ka sugta hor batroolka xasan sheekhaa noo qoda hadda waa nin meydka meyd xasan sheekhaa noo qodaya batrool meyd aadan waxumahay qabaa'ilada iyo dagaaladana sirtooda waa ka soo warrami doonaa shabeellada dhexe dad walaalaha codgaala ayaa la isku diraya shabeellada hoose hawiye iyo digli midifla madaxa la isku geliyay walaalahay halkaa deganna waxaan leeyahay damujdiid qorshahay wadato waa kaas maantana maxay rabtay inay gaalkacyana dagaal ka riddo bal arag gaalkacyo inay dagaal ka riddo galmudug lagu dagaalamo hirshabeelle lagu dagaalamo shabeellada hoose lagu dagaalamo inta dagaalkaasi la wadana ay batroolka kaligood qaataan lacagii batroolka waa sax axmed madoobe iyo dani maanta uu ka soo hadlay waa sax laakiin insha allah wixii duuduuban arrintaas waxaan uga hadli doonaa iyadoo duuduuban caawa lifekayga kale caawaan uga soo hadli doonaa waxaan rabaa marka dadka inay mid ila fahmaan intaanan ka bixin lifeka shanta madaxweyne maamul goboleed aan idin kala baraya saddexdan hadda xasan sheekh la joogto waa nimankii khiyaanay madaxweyne farmaajo ma ilowdeen madaxweyne farmaajo ayaa khiyaanay qoorqoor cali guudlaawe iyo lafta gareen muxuu ka faa'iiday farmaajo inuu saaxiib ka dhigto waxbana horta ogaada saddexdan qofka wato waa qof fashilmay qofka lafta gareen qoorqoor iyo cali guudlaawe aamina waa qof fashilmay shalayaa jilbaha dhulka ugu dhuftay marka labada shanta madaxweyne labadan hadda saaxiibaday saciid cabdullaahi dani iyo axmed maxamed salaam axmed madoobe go'aankooda waa mid adag waana ka adkaan doonaan xasan sheekh meel iiga qora ma ogolaan doonaan waana ka soo warrami doonaa arrintaas insha allah dalkuna waa barwaaqu gaari doonaa laakiin waa damujdiid kadib haba rajayni war ma axmed macalin fiqi xasan sheekh maxamuud iyo yuusuf madaale iyo xamse cabdi barre miyaan ka sugaynaa dal barwaaqa no ma dhacayso waayahay wixii ku soo kordhaa barnaamijyada kale ayaan idinkugu soo gudbi doonaa caawa iyo lifeka xiga
xiisuu leeyahay halkana life kusoo geli doonaa lifeka caawa waxba layskuma yaraysan doono waxaan soo gudbin doonaa xogihii ugu dambeeyey oo ugu xiisaha badnaa halkan ayaad igala socon kartaa facebooka pageka cabdullaahi balwaan ummadayda sharafta leh daawad doontana waxaan u sheegayaa anigu waxaan qaatay soomaalinimo iyo sharaf iyo cizo qof kasta oo soomaaliyeedana la safanahay si kale markaan hadalka u dhigo cid kasta oo dalkan toosinaysa qabiilku doona ha ka soo jeedo waa la safanahay qabiil ma qoro ha iga sugin ilma adeernimo qofaan ku difaacaya male anigu bannaankaasaan taaganahay waxaan ka hadlayo waa wax xaqiiqa oo taagan ciddii dulmiga wadda cidday doonta ha ka soo jeedo karbaashkaygu waa diyaar lifeka caawa iyanu ku sheegin waana idinka raaligelinayaa beejkan maalmahan waa dee waktigii ciriiri fara badan iyo dee waktigu waa iska ciriiri laakiin lifafka ayaan kordhi doonaa wax badan baad halkan kala socon doontaan insha allah waana la guulaysanaya waan hubaa in la guulaysan doono waan hubaa shaki kuma jiro marka lifeka kan xiga yuusan ku sheegin intaynu barnaamijka mid lamida ku kulmi doono nabadgelyo